Assalaamu calaykum daawadayaal. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Ha ilaawin inaad muuqaalkan like saartid. Share-na ha ilaawin si uu muuqaalkan u gaaro saaxiibadaada. Mahadsanid. Bilowga filimka waxaan arkaynaa nin la dhahayo Dante oo la joogo wiilashiisa. Wiilashiisna waxaa la kala dhahayo Fernando iyo Ronaldo. Naagtiisa waxay qabtay cudurka kansarka. Dhakhtarkii markii uu Oyoka u sheegay inay marayso marxaladda saddexaad oo na dhimani doonto, waxay iida ka soo bixiyeen cisbitaalka si ay u daryeelaan. wiilkii Fernando la dhahayo wuxuu qabay saaxiibtiisii oo la dhahayo Sol waxay joogtaa guriga saaxiibkeeda si ay Oyoka u saacideyso. Dante wuxuu qabay warshad la dhahayo Dante Mill, wuxuuna ilmihiisa u sheegay inuu qarashka lagu daaweynayo naagtiisa ay aad u weyneed, saas darteed alaabtii warshadda ku jirtay way dhammaatay. Wuxuuna qorsheynayaa inuu gadi doono warshadaasi si uu lacag u helo. Ilmihiisna way ka oggolaadeen midaasi. wuxuuna Oyoka u sheegay inuu u keeni doono kalkaaliso si ay u daryeesho naagtiisa, balse wiilashiisa ayaa u sheegay inuu isaga oggolaanaynin midaasi. wuxuuna Oyoka u sheegay inuu horeen jecleen, balse hadda wuxuu iida u samayn doonaa waxay rabto ka hor intay dhimanin. Maalinta ku xigtay waxay imaaday kalkaaliso la dhahayo Alice si ay naagta Dante u daryeelto. waxaan ogaanaynaa inay Alice iyo Dante ay isjecel yihiin, saas darteed Dante wuxuu iida u keenay si ay isaga u soo dhawaato. habeenkii markii la gaaray, Ronaldo iyo Fernando waxay bilaabeen inay Alice ka sheekaystaan, balse waxaa imaaday Dante oo na bedelay mowduucii ay ka hadlayeen. wuxuuna bilaabay inuu Oyoka u sheego inuu bacsharadiisa ay khasaare ku wajahsan tahay. wuxuuna Oyoka ugu daray inuu qorsheynayo inuu dhulkiisa iska iibiyo si uu lacag uga helo. intaas kadib, Alice waxay aaday gurigeeda kadib markii ay u shaqaysay naagtii Dante. Dante wuxuu aaday xaafadda Alice oo na jecel la sameeyay iida. muddo yar kadib, naagtii Dante way dhimatay. Dante wuxuu wiilashiisa u sheegay inay Alice ku noolaani doonto gurigan oo na u buucini doonto booska hooyadoodii. wuxuuna Oyoka u bandhigay xiriirkoodii. markay taasi maqleen, ilmihiina way canaaqeen, waxayna aabbahoodii u sheegeen inuu ku degdegay ilaa maalin badan ma ka soo wareeganin kadib markay hooyadeeda dhimatay. intaas kadib, Sol waxay saaxiibkeeda Fernando u sheegtay inay shaqada ka yaraatay ileen Alice ayaa qabani doonta shaqada guriga. waxayna ugu dartay inay baxi doonto berritoole oona shaqada soo raadsanayso. wayna sacdeen kadib markay sheekaysteen. muddo yar kadib, waxaan arkaynaa wiilkii Ronaldo la dhahay oo urinayo dharka Alice, wuxuuna fiirsaday jirkeeda iyadoo qabaysanayso. casarkii markii la gaaray, Fernando markii uu yimaaday wuxuu ka tagay xagga kadib markii uu ogaaday inay Alice u karisay cunto. maalinta ku xigtay, Alice markii ay cuntada u keentay Oyoka, Ronaldo wuxuu ka qaaday cuntadii xagga Fernandona ku canaaqsanay iyada. markii Alice baxday, Ronaldo wuxuu Fernando u sheegay inuu si xun la hadlin Alice ileen iida sabab ma u ahayn dhimashada hooyadooda. Fernandona wuxuu u sheegay inay iida tahay qof xun. habeenka markay qoysku cashaynayaan, Sol waxay sheegtay inay shaqada ka heshay mool la dhahayo MC. tanina waxay ka canaajisay Dante ileen waxay ahayd shirkaddii ay khasaare u keentay shirkaddiisa. intaas kadib, waxaa imaaday Fernando oo khamraysan, wuxuuna bilaabay inuu caayo Alice. Dantena markii uu tani maqlay, wuxuu bilaabay dagaal, waxaana dhexmaray dagaal adag. Dante wuxuu qof kulli u sheegay inuu aroosi doono Alice oo ayna noqoni doonto hooyadoodii. lacag la'aan darteeda, Dante wuxuu go'aansaday inuu gado shirkaddiisa. Ronaldo wuxuu isaga u keenay nin oo raadinayo shirkad si uu u iibsado. ninkiina wuxuu Oyoka u sheegay inuu lacag yar ku iibsan rabo shirkaddaasi. dhinaca kale, Fernando wuxuu aaday saaxiibadiisna waxay u sheegeen inay Alice aabbaheeda iyo Dante ay is aqaaneen. markii uu aabbihii Alice dhintay, Dante wuxuu go'aansaday inuu Alice xiriir jecel la sameeyo. dhacdadaas kadib, Fernando wuxuu u imaaday walaalkiisa Ronaldo oona u sheegay inuu aabbahoodii xiriir jecel kula jiray Alice ka hor inta ay hooyadooda dhimanin. labada walaalood waxay qorsheeyeen si ay Alice ka harsini lahayn aabbahoodii, waxayna ku tashteen inay Alice xiriir jecel la sameeyaan si ay Dante ka tagto. maalinta ugu xigtay, Ronaldo wuxuu imaaday xaafadda, wuxuuna arkay Alice oo shaqaynayso. wuxuuna u imaaday iida si uu u shukaansado. Alice-na waxay dareemtay cabsi badan, waxayna dhul ku riday sacan. markii uu Dante maqlay qaalida oo na soo baxay si uu u soo fiiriyo, Ronaldo wuxuu ka tagay xagga. dhinaca kale, waxaan arkaynaa Sol oo isdiyaarinayso si ay shaqadeeda cusub u aado. Fernandona wuxuu aabbihii weydiistay furaha gaariga, balse aabbihii ayaa u diiday inuu furaha u dhiibo. hal habeen, Alice waxay maqashay labada walaalo oo ka tashanayaan si ay ku shukaansan lahaayeen iida. iidna way la yaabtay midaasi, waxayna ka tagtay xagga. subaxdii ku xigtay, Dante wuxuu gaday gurigiisa. dhinaca kale, waxaan arkaynaa Fernando oo u imaaday guriga si uu u cunteeyo. Alice waxay ahayd keliceedii. Fernandona wuxuu arkay tani inay tahay fursad, wuxuuna bilaabay inuu shukaansado iida, waxayna sameeyeen anshax xumo. markii uu Ronaldo xaafadda imaaday,
wuxuu arkay Ronaldo iyo Alex oo xiranayaan dharkoodii, taasi oo ka dhigtay inuu fahmo waxa ay sameeyeen. Ronaldo-na wuxuu ahaa qof ka helay Alex, sidaas darteed markii uu tani arkay wuxuu bilaabay inuu Ronaldo qaraaco. Ronaldo-na wuxuu isaga u sheegay inay labadoodu ka jiraan qorshadaasi. Intaas kadib Sol waxay imaaday xaafadda kadib markii ay shaqadeeda dhamaysatay. Daantina wuxuu cabay khamri cad dhaaf ah. Sidaas darteed markay Sol dharkaas ka bedeshay, Daantiga wuxuu imaaday iyada oo na bilaabay inuu iyada kufsado. Nasiib wanaag waxaa ka soo gaaray Ronaldo. Daantina wuxuu raaligay Ronaldo oo na u sheegay inuu cabsan yahay. Sol waxay dareemtay cabsi aad u badan, balse Ronaldo ayaa u sheegay inay qofna arrinta la wadaagin. Habeenkii ku xigtay, Ronaldo markii uu saaxiibkiisa la sheekaysanayay, waxa uu imaaday Ronaldo oo na u sheegay wax ku saabsan Alex iyo Ronaldo. Taasina waxay ka dhigtay inuu xagga ka tago. Markii uu imaaday, wuxuu arkay inay labadoodu wada joogaan. Intaas kadib, Ronaldo iyo Dante waxaa dhacmaray dagaal aad u culus. Solna waxaa imaaday kadib markii ay maqashay qaylidaasi. Dante wuxuu soo qaatay bastooladiisa, wuxuuna dilay wiilkiisa. Sol markay tani aragtay, waxay midi ku mudday Dante. Dantena xagga ayuu ku dhintay. Muddo yar kadib waxaa imaaday booliis oo ayna qabteen Sol. Dhimashada aabihiisa kadib, Ronaldo wuxuu la wareegay hantida aabihiisa. Intaas kadib, Ronaldo wuxuu gaday dhulka iyo hantida aabihiisa. Waxaan arkaynaa inay Ronaldo iyo Alex isku faraxsan yihiin. Hadda waxaan ogaanaynaa inay Ronaldo iyo Alex isjeclaayeen oo ayna ku jireen hal iskuul. Waxayna ku jireen xiriir ka hor intay Alex imaanin gurigoodii. Wayna wada shaqeeyeen si ay ka takhalusaan Dante iyo Ronaldo. Intaas kadib, Ronaldo wuxuu Alex ka codsaday inay isaga guursato. Dhammaadka filimka, waxaan arkaynaa Ronaldo iyo Alex oo galayo gaarigoodii cusbay. Filimkeena xagga ayuu ku dhamaanayaa. Walaal ha ilaawin inaad muuqaalka like iyo share saarto. Mahadsanid.